subxaanahu wa tacaala labadii aabbo xaawo iyo aadam labadeenni aabbo hooyadeen xaawo iyo aabbaheen aadam jannadii maxaa looga soo saaray waa dunuubtaa ka soo saartay ibliis maxaa loo nacdalay oo naxariista ilaahay looga fogeeyey waa dunuubtiisii weeyaan qoomkii nebiyullaahi nuux maxaa loo qallibay qoomkii gebigiisii oo loo qaraqay waa dunuubtoodii weeyaan reecad muxuu ilaahay dabaysha ugu salliday waa dunuubtoodii ree hamuud maxaa loogu dhawaaqay oo loo halaagay waa dunuubtoodii qoomkii nebiyullaahi luud maxaa dhulka loola gooyey waa dunuubtoodii ree shucayb daruur cadaabba ilaahay muxuu ugu soo saaray waa dunuubtoodii fircawn maxaa loo qaraqay qaaruun maxaa dhulka loola gooyey waa dunuubtii ina nebi aadam dunuubtaasaa ku halaagaysa ina nebi aadamow ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum musiibo iniguma dhacdo ilaa hadda inigu dhacdo waa wixii aad qacmihiina aad ku goosateen buu ilaahay leeyahay maa nazala balaa'un ilaa bidamb wamaa rufica ilaa bitawba balaayo ma soo degto ilaa hadday soo degtay waxay la soo degtay in waa dembi la sameeyey lama kor yeelo balo ilaa towbaa lagu kor yeela dadkii hore nin wanaagsan oo cibaadii hore ka mida ayaa dembi ku dhacay dembi buu sameeyey hurdadaa loogu yimid waxaa lagu yidhi latajidanna qabbahaa caaqibadeeda iyo xumaanteeda dembiga aad la timid waxaad heli doontaa bacda 40 sana 40 sano kadib ayaad arki doontaa dembiga aad la timid 40 sano kadib ayaad arki doontaa moxamed ibnu siriin maalin bay dhibaata qabsatay dayn lagu lahaa ayuu la murugoonayey markaasaa waxa uu yidhi waxaan garanayaa innii la acrifu hada algham ghammigan iyo murugtan i haysata iyo dhibaatadan waan garanayaa xaggaan ka soo qaaday waa dembi aan ku dhacay mundu 40 sana 40 sano in laga joogo dembi aan galay ayay haysta ilaa maanta imaam axmed waxa uu ka wariyey abudardaa waxa uu yidhi abudardaa waclamuu ogaada ana albira laa yabla dembigu ma gaboobo albiru wanaagu laa yabla ma gaboobo wa ana aliثm dembigana laa yunsa lama iloobo adigu waad ilowday dembi baad samaysay waad ka ilowday lama iloobin dembigaad samaysay uu ku daba socno waad iska ciyaaraysaa adigu waad iska qoslaysaa war uma haysid laakiin dembigaasi uu ku daba socon beri dambe ku qaban doonaa waxaa laga yaabaa inuu adiga iyo awlaadaada uu ku qabto qisadii ugu horeysay aan soo qaadanno alxaqiiqatu almura waa xaqiiqadii qadhaadhayd haweeney ayaa oday lahayd 5 sano ayuu qabay daariin ayaa la yidhaahdaa haweenadaas wax carruura umay dhelin waxay ku fikiraysay maalinka ay noqon doonto hooyo ay ilmo yeelan doonto ilaahay bay baryaysay rabbi subxaanahu wa tacaala inuu ilaahay walad saalixa u siiyo ayay baryaysay in badan ayay ducaysan jirtay ilaahu walad isii ilaahu 5 sano yaan ku baryayaa rabbiyow walad isii ilaahu walad isii aad bay u ooyi jirtay waxay ku fikiri jirtay maalinka hooyo noqon doonto ilmo yar arki doonto ayay ku fikiraysay haweenaydii waxay is aragtay isbeddel bay iska aragtay caadadii baa ka joogsatay iyadoo madax xanuun leh is aragtay waxay aragtay iyadoo isbeddeshay ayay is aragtay dhakhtarkay tagtay way isbaadhay odaygaa raacay wuxuu dhakhtarkii u sheegay inay uur leedahay way faraxday farxad 5 sanay sugaysa farxad oo isqaadi kari weyday dadkeygii bay ugu sheegtay farxad waa la iskugu yimid farxad ducaa la sameeyey wiilkii ay sugaysay ayaa yimid uu dhashay waxay u bixisay moxamed ayay u bixisay
laakiin wiilka waa lagu jeexay aad bay ugu faraxday wayna ku dhibaatootay jeexitaanka ilmaha lagu jeexay ku dhibaatootay odagayga waxay ka codsatay in ay uu qabto haweeney u shaqaysa qaadimad iyo qabo uu qabtay waxaa jiraysay islaan da'a oo faqiirada oo miskiinada oo guryaha u shaqaysa ayaa jiri jirtay islaantii buu u keenay si ay ugu shaqayso markay 7 u shaqaysay ayaa waxay ku tiri haweeneydii daarin bay ku tiri islaan da'an ahay laakiin inan yar baa guriga ii joogta anu aan dhalay inantaasaan kuu keeni ha kuu shaqayso anaana shaqada bari maalimaan la joogi ay ogoloo bay tiri waayahay bay tiri sidii bay inanteedii yareed ba u keentay inantii baa ay shaqada tusaysay 20 maalmood ayay u shaqaynaysay islaantuna ay ag taagneed gabadheeda tayad da'deedu 17 jir ayuu yahay aad bay u qurux badantay way soo labisan jirtay markay gurigan imanayso way soo qurxin jirtay soo labisan jirtay markaas iman jirtay daarin ba aragtay tayoor mar walba isa soo qurxisa waxay ku tiraahday soo qurxin way cabsanaysaa odagayga oo cabsanaysaa in meesha fidna ka dhacdo may buu ku yidhi maxaa dhibaato ah iyadoo foolxum intay ku iman lahayd soo qurxiso dhibaato male inay faliisiiso ayay doontay waxay tiri wuxuu ku yidhi may 40 ka dhammayso kadibna markaa iska faliisi laakiin ha kuu shaqayso tii yare gurigay ka shaqaysaa way soo qurxisaa 37 maalmood markay u shaqaysay ayaa gabadhii daariin xumadii xanuun dhiiggii nifaaskii ayaa xumad ka qaaday ay ku xanuunsatay odaygii ayaa sida caadadiisa si aan ahayn ayuu subaxdii markuu soo baxo uu iman jiray uu wareysan jiray sideed xalay ahayd oo adigii xanuunsanayay maxaa subax uu iska soo kacay baabkii muu ka baxay way shakiday maxaa dhacay bay tiri talow muxuu ii soo mari waayey uu ii baridin waayey way shakiday gabadhii shaqeedda ahayd baa u dhawaaqday gabadhii ayaa maqli weyday aad bay u xanuunsanaysaa way soo kacday iyada raadinays aqalkii bay dhex marmartay way ka weyday qolkii ay seexanaysay ayay ka raadisay way ka weyday guriga xaggii mandaradda ahay bay u kacday waxay aragtay qolkii odaygaygu u seexanayay iyadu ay wala seexan jireen oo dharkii hurdada xidhan tahay oo hurdo lugta dul saartay albaabkay furtay waaba gabadhii oo naa waa maxay bay tiri waxaad samaysay way ku qayliday ma waxaad seexanaysaa gurigii odagaygaad seexanaysa oo dharkaygii baad xidhanaysaa dharkii hurdada miyaad xidhan waxay ku tidhi hadalkaaga u fiirso ha igu dembaabin gurigan anigaale ma ogid uu i guursaday odaygu in 7 laga joogaba caruusad baan ahay arrintiibaa meesha khilaaf baa ka yimid waa la isku qabtay meesha feerfeer bay bilaabeen dumarkii iyo xagashu dhulkaa la isku ladgay meeshii dagaal xoog laa ka dhacay kadibna ilmihii yaraabay soo qaadatay axmed mise maxamed buu ahaa maxamed way la soo dhaadhacday hoostay la joogtaa odaygaygii baa yimid isagoo lalaya aaway buu yidhi waxay tidhi kor bay joogtaa wuu u dhawaaqay ummu maxamed xaggee joogtaa albaabkiiba furay waaba iyada oo mayda oo caloosha u jiifta oo dhiiga ka soo dareeray meel socdo wuu dhawaaqay khaadimaddii baa soo oroday meeshii bay timid waxay tihi maxaa dhacay subxaana allah iyadoo fiican ayaan ka imid hab kori maan ku odhi meesha ma kori karaysid laakiin way kortay xaggii buu dhawaaq ku dhuftay akhiiran waxay socotaba qisadii dadkii jaarkaa yimid dhakhtarkaa loola orday
dhakhtarkii wuxuu sheegay inay dhimatay albaabka fardada albaabka ayaa meeshii laga jeexay ka gashay nabarkuna wuu furmay sidaasay ku dhimatay ninkii dhakhtarka ahaaba waxa uu yidhi miyuuna qofin la joogin markaas may buu yidhi wiilkayga yar ma la joogay maxamed waa qadar ilaahay baa la yidhi saasaa lagu aas 3 maalmood kadib markii la aasay ayuu reerkoogii ayuu u dhawaaqay gabadha xaaskiisan dhintay uu ogeysiiyey gabadhiina way dhimatay ee kaalaya aabbaheed hore u dhintay ahayd hooyadeed iyo walaalkeed baa yimid waxay ku soo tashadeen inay wiilka yarna ay qaataan maxamed ay korsadaan iyagu u soo dhoweeyey inantii shaaqiyadda ahayd oo meesha taagan magaceegana jamaalaad baa la yidhaahdaa oo meesha joogta ayay aragtay islaantu waxay ku tidhi odaygay ku tidhi gabadhani waa ayo abu maxamedow waa ayo gabadhani waxa uu ku yidhi innahaa zawjati waa haweenaydaydii daarin iyadoo oo nool baan guursaday gabadhan ma sidaasaa bay tidhi haa way shakideen markaa waxay tidhi gabadhaydii yaa dilay see u dhimatay waan ka shakisanaya habkaad iigu sheegtay inay u dhimatay gabadhan may joogtay haa gabadhan waan qabay laakiin lamay joogin maalinkaas qadar allah dushay fuushay albaabka jeedhay naburkaasaa ku furmay gabadhi yareed bay eegtay caruusadii jadiidka ahayd waxay tidhi maxamedow i dhegayso idaa kaanat alxaqiiqatu ikhtafat can almakhluuq xaqiiqadu hadday ka qarsoonaatay makhluuqan ay ka qarsoon tahay xaqiiqadu falan takhtafii can alkhaaliq ilaaha khaaliqa ah ka qarsoonaani mayso weligaa ilow dembigan mow u male in la iska iloobay laakiin ilaahay iloobi maayo waa ku daba soconi arrintaasi ogow abu maxamed uma aabbayeelin arrintaas waxa uu yidhi kullu insaanin ya'khudu nasiiba qof walba nasiibkiisuu qaadan way dhimatay nasiib abu maxamed waxa uu doonay inuu sharaab iyo u shubo oo iska diiday islaantii way xanaaqsan tahay waxay tidhi ilmahan korsanayna annagaa ka haysanayna waa yahay buu yidhi waxa uu ku yidhi bishii walba masruufkan keeni may bay tidhi annagaa korsanayna adeerkii ayaa wiilka qaaday way baxeen haweenaydii shaaqiyadda ahayd jamaalaad la odhanayay gurigii viilada ahaa ayay ku nimcaysataa oo ku dhex noosh marna dushay tagtaa marna hoos nolol fiican ayay ku noosh faqiirnimadii way ka raysatay xaalkeegu wuu wanaagsanaaday sanad kalaa soo maray si wanaagsan sanad kalaa soo maray si wanaagsan carruur bay u dhashay 8 wiil iyo 3 hablood ayay u dhashay waa imise 11 ayay u dhashay maalin walba qurux baa u biiraysay miskiinad bay ahayd faqiirada oon waxba haysan nimcad bay soo gashay laakiin dembigu ma yara ilaahay addoonkiisa waa u kaadiya markuu qabtana kama siibto iyadoo oo nimcaddaa ku nool ayaa odaygayga waxay ku tidhi waxaan doonayaa inaan soo yaro dalxiisno in yar hawadaan soo yaro bedelaynaa magaalo kale nagee aan soo yaro dalxiisno waayahay buu yidhi baabuur buu ku qaaday weyn iyada iyo carruurteedii oo dhan 11kiiba isagaana ku waday baabuurkii baa la qallimay gebigood waxaa ka badbaaday iyada iyo wiilkaygii weynaa ee curadka ahaa bes intii kale way ku dhinteen iyadii lafta dhabarka ayaa jabtay wiilkaygiina iyo qacantii iyo meeluu ka jabay laakiin waa iska fayowya markii ay soo miyirsatay ayaa waxay ogaatay in carruurteedii inankaas uu ka nool yahay 10kii kale inay dhinteen ayay ogaatay iyadiina waxaa ku dhacay dhinac baa baktiyey baralisiya baa ku dhacay 3 sano ayay dhakhtarka ku jirtay wiilkaygii 2 bilood buu ku jira oo ka soo baxay noloshiiba hadda ku culusaatay waa la bilaabay dembigii baa bilaabay
waxay ku socotaa waa kursi yaa lagu wadaa dadka laxaad kale kursiga ay raacaan ay ku fadhiistaan ayay ku socotaa wiilkeegii ayay ku tiri ii kaale dhakhtarkan ka soo baxe baabuur buu soo kaxaystay isagana waddada markuu soo socdo baabuurkii la rogmaday isaguna waddaduu ku soo dhintay wax u yimaada way weyday waa keligeed laakiin lacag baa leedahay la soco dhakhtarkii ayaa reerkoogii bay raadiyeen aabbaheed iyo walaalkeed baa yimid si ay u qaataan waxaa yimid moxamed maad garanaysaan moxamed waa wiilkii oo odagayga u dhalay ayaa yimid si dhaxalkii aabbihii uu xoga qaato waxaa la socotay macoydii ayaa la socotay islaantii dhashay daariin gabadhii meeshay soo taagan tahay waxay tidhi markay islaantii aragtay ayay xasuusatay inay dembi gashay waxay ku tidhi habar yar maad xasuusanaysaa hadalkaagii aad igu tidhi ida alxaqiiqatu ikhtafat can almakhluuq xaqiiqadu hadday ka qarsoon tahay makhluuqa dadka ay ka qarsoon tahay ilaaha khaaliqa kama qarsoona maxaasonta haa bay tidhi waxay tidhi saamixnii ana alatii qataltu daariin gabadhaadii daariin anigaa dila isaamax ilaahay waa kan ii qabtay carruurtaydii oo dhan waan waayey anigana waa ka dhabarkaa la iga jebiyey nolosha qadhaadh baan ku noolahay isaamax islaantii way oyday waxa ay tidhi ilaahay nolol xun ha kugu noolaysiiyo aakhirana ha kugu cadaabo waxa ay tidhi odagaygii waan waayey awlaadaydii waan waayey shabaabnimadaydii iyo caafimaadkaygii waan waayey in yarum isaamax islaantii iyadoo adhaysan oo ooyeysa ayay ka baxday jamaalaad xaggii bay reerkoogii la joogtay aabbaheed baa dhintay walaalkeed ayaa u hadhay lacagtii yaraydee soo dhaxashayna isagaa ka qaatay khamru ku cabbay uu ku sinaystay isagiina akhiiran suxun buu u dhintay jaarka ayaa lacag u soo ururin jiray sadaqaddaa la siin jiray jamaalaad keligeed ayay ku nooleed maqsin yar oo cidhiidhiya cidlay ku dhimatay waxaa lagu gartay dhimashadeedii meydkeegii ayaa meesha ku qurmay markaasay jaarkii uriyeen meydkii cadaabka aakhirana waa ka daran yahay dembigu waa sidaa ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala uu kuu kaadin laakiin maalinka uu ku qabto rabbi ku naxariisani maayo waad iska noolaan waxoogaa waad iska jiri laakiin maalinka ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku qabto ka fakan kari mayse waa xaqiiqo waa qisad dhaba ma aha khayaal ma aha waxaan inii sheegay qisad kale oo dhacday oo xaqiiqiya iyaduna qisadani waa 2 usbuuc reexayso noloshaada oo dhan iyo qoyskaaga oo dhanna ha baaba'o qisadani wiil yar oo dhalinyara oo jaamacadda dhigta ayaa jaamacadda ayuu galay mar uu u soo daalay uu u soo dhibaatooday kadib ayuu jaamacadda galay markuu jaamacadda u ka sii baxayay jaamacadda ka bixitaankaygii sanad baa uga harsan ayaa waxa uu goostay inuu dibadaha u dhoofo yurub reerkoogu iyagoo ina ogeyn ayuu doonaya inuu yurub tago waxa uu rabaa inuu zino uu xaggaa ku soo sameeyo xashiisho iyo khamro inuu maartaay uu soo cabo ayuu rabaa aabbihii buu ka qarinayaa hooyadii buu ka qarinayaa dadkoogu inay ogaadaan ma doonayo wiilkani arrintaasi markay ku soo dhacday fikraddaasi inuu dhoofo
uu yurubta u dhoofo uu xumaanta uu soo sameeyo waxa uu ku fikiray siduu waalidkii way ogaanayaan dhoofkiisa siduu uga qarin lahaa arrintaasi markay ku soo degtay wuu isweydiiyey habku been u samayn lahaa wuu isweydiiyey akhiiran waxa uu yidhi waxaan odhan aabbaha iyo hooyaday meel yaroo tuulo yar oo waddanka ka mida ayaan u yaro dalxiis tegayaa isaamaxa iyo ogolaada arrintiibuu waalidkii ku qanciyey waalidkii waa yahay buu yidhi aabba waan daalay jaamacadda waan ku daalnay in badan baan wax dhiganaynay maskaxdaydu nasasha u baahan tahay heysadahanaan tegayaa waxoogaa fasax lacag isii wuu marsiiyey aabbihii waa yahay buu odaygii waxa uu bilaabay inuu baasaboorkii si hoos ahaan ula soo baxo iyaga oo dadkoogu ayna ogaan kadibna safarkiisii ayuu u dhaqaaqay lacagtiina aabbihii wuu siiyey waxa uu yidhi 2 toddobaad umaan kaa maqnanaya aabbo 2 toddobaad kadib oon iman odaygii sidaasuu ku waafaqay wuu yeelay lacagtiina waa siiyey 2 toddobaad ayuu maqnaanayaa wiilkii reerkoogii wuu sabootiyey wuu baxay mid saaxiibkii ayuu la heshiiyey oo yidhi hoos baad ii kaxaynoo madaarkaad igeyn markaan imanayana adaa i soo celin sidii buu yeelay saaxiibkiibuu ugu sheekeeyey oo yidhi ha u sheegin reerka yurub baan tegayaa xidhiidh wanaagsan haynoo dhexeeyo sidii uu ku baxay madaarkii buu geeyey meeshiiba ay ku sugeen waxoogaa kadibna diyaaraddii buu raacay magaaladii uu rabay buu ka soo degay wuu faraxsan yahay xumaan buu ku faraxsan yahay zine iyo shar buu u yimid inuu meesha inuu kusoo tunto u yimid markii uu meeshii yimid oo hoteelkii uu ku soo degay uu rabay uu jirkii hore u maydhay inuu hore u baxuu rabaa caawaba inuu ka faa'idaystuu rabaa wakhtiga isla markiiba wuxuu codsaday in khamro loo keeno waxa khamradii baa loo keenay gabadh yar ayaa u keentay aad u qurux badan timo dhaadheer ayaa u keentay qaawan maro yaro khafiifa xidhan waa u soo gashay wuu rumaysan waaye hal qaawan oo khamradii wadda ingiriisiga aad uma yaqaano waad mahadsan tahay buu ku yidhi wuu sii eegay sii daba dhaqaaqay way soo egto maad ii baahan tahay ku tiri may buu yidhi thank you very much wuu sii dhaqaaqay wuxuu u dhaqaaqay xagga iyo wuxuu is yidhi hoosta tag hoteelka sharaabkii ka soo cab soo tumo markii meeshii hoose u yimid luqada aad uma yaqaano wuu jajabsadaa khamradii baa loo keenay meesha waa boqol tiriigoo kale midaba ayaa meesha waa la ciyaarayaa waa la daansayaa waa waxbaa socda meeshii buu soo degay gabadh baa u timid uu u malaynaya tii inay tahay aad u qurux badan tii baa la fadhiisatay waxa uu ku yidhi naa tii markii hore ma tihid waan ahay bay tiri waad isbeddeshay dharkii umaan beddelay buu ku yidhi ayay ku tiri way u sheegtay waxay ku tiri anuu dadkan raaligeliyaa sharaabkan u keenaa waxay u baahan yihiin oo dhan baan siiyaa si hoteelkan qofka uu mar walba u yimaado xaggii buu habeenkii o dhan kula soo jeeday waxa qolkuu ii raac buu ku yidhi qolkii bay isku raaceen xaggaas ayay 3 saac ilaa 4 saac ayay ku sheekaysanayeen khamradii bay cabbeen way sakhraameen zini iyo xumaantii bay ku dhaceen xaggii buu kala dhacay way agjiifsatay subaxdii markuu toos u naagtii u agjiifta uu argagaxay maada tafcaliina huna xaggan maxaad ka qabanaysa yaa kuu ogolaaday inaad soo geshid markaas u sheegtoo tiri adiga oo caynkaas oo adiga ii soo dhoweeyey caynka waa u sharax garaan noqow yidhi sharaabkii uu la cabbay xaggiiba haddana sharaab kale u keentay madaxa xanuunay jidhkuu soo yaro maydhay kadib xaggii buu ka sii maysay sharkiisii iyo fasaadkii khamradiibuu sidii u cabbay naagtaasuu la noolaa 2 toddobaad khamraduu cabbayey zinadaasuu ku dhacay
xashiishad iyo wax walba soo jeed buu waqtigiisu ahaa 2 toddobaad buu sidaa ku dhammaystay subaxdii uu noqonayo 2 toddobaad ay u dhammaatay ayuu gabadhii ku dul ooyey isku dul ooyey nina ku dul ooyey waan ku soo noqon doonaa iyar kadib maalmo ma ka maqnaan iyaduna ku dul ooyday wadankiisiiba ku soo noqday isaga oo faraxsan sharkii uu ku dhacay ku faraxsan xumaantii ku faraxsan gabadhii quruxda badneed ku faraxsan ayuu yimid saaxiibkii baa madaarka ka soo kaxeeyey baasaboorkii meel iska dhigay hooyadii aabihii u yimid sheeko caadiya oo meeshii waa iska fiicneyd waddankeenu uu qurux badan yahay xaggaas ayuu ka miistay jaamacaddii buu ka baxay ninkii kadib shaquu helay wuu shaqaystay waxa uu yidhi waxaan doonayaa aabba inaan guursado haddeed naagtii iyo hoteelkii maskaxdiisa kama bixin mar walba wuu ku fikiraa si uu isku ilowsiiyo ayaa waxa uu yidhi iska guurso laakiin ogow ilaahay rabbi waa u cadhaysan yahay rabbi subxaanahu wa tacaala dembigaana waa loo qabanayaa uu ku reexaysanaya xataa qofku hadduu dembi uu ku dhaco waa inuu ka murugoodo dembiga uu maskaxdiisa ilowsiiyo inaad mar walba aad soo ceshatid ma aha waa ka murugood inuu ka murugoodo weyn qofku isagu waa ku soo ceshanayaa gabadhii oo la hadlaysaa lagu qoslaysaa isagoo xumaantii samaynaya isagoo khamradii cabaya wixii oo dhan wuu guursaday waxa uu guursaday gabadha adeerkii u dhalay ayuu guursaday waa isdiyaariyey oo waa diyaargaroobay aroos fiican ayaa loo qabtay 2 bilood kadib ama 3 bilood haweenaydiisii waxay tiri uur baan leeyahay la soco wuu farxay aad buu ugu farxay aabbu noqon doonaa maalin maalimaha ka mida isagoo oo ku fikiraya markuu aabbo u noqon doono oo baabuurkiisii wata waa islaantiisu markii ay dhalmada bil uga harsan yahay weeyaan ayuu agsidaan galay baabuur kale isjeedhaan madaxa ayuu meel ku dhuftay dhakhtarkaa loo qaaday dhakhtarku bil ku jiraa bil kadib haweenaydiisii baa dhakhtarkii iyadana loo qaaday way dhashay wiil bay dhashay dhakhtarkii ayaa loogu geeyey aad buu u farxay markii uu rabo inuu ka soo baxa dhakhtarka ayaa waxyaalo jirkiisa ayaa ka soo baxay kulayl xumad kulul ayuu yeeshay dhidid fara badan ayuu yeeshay shuban ayaa ku dhacay qufac aan kala go' lahayn ayaa helay waa la baadhay waxaa la ogaaday aidis inuu ku dhacay sidaa ayaa la ogaaday waa naagtii wuxuu ka soo qaaday ogow arrintii meeshii baa laga saaray qol gaara ayaa lagu xidhay dhakhtarka aabbihii baa xanaaqoo yidhi maxaa wiilkayga qolka gaarka loogu xidhaynayaa waa loo sheego waxaa la yidhi wiilkaaga cudur khatara ku dhacay xaggaasu ku xidhnaanaya waa loo sheegay siidaa baa ku dhaca la yidhi odaygii isagoo oo aad u murugaysan ayuu wiilkiisii soo kortaagay waxa uu ku yidhi ii sheeg runta berigii xaggeed u dhooftay dhul xaaraana u dhooftay khamrada lagu cabo lagu sinaysto miyayna ahayn wuxuu diidaba markii dambe haa buu yidhi wuu u sheegay waxa uu yidhi meeshaas ayaan maaragtay u dhoof khamrana waan cabbay waana sinaystay markuu intaa u sheegay odaygii naxdin isagana dhinac baa baktiyey baaralisey inna batsha rabbika la shadiid qabashada rabbi way adagtay odaygii waa la qaaday dhinac baa isagiina dhakhtarka dhinac laga jeefiyey wiilkii ayaa loo sheegay in haweenaydiisii ay imanayso ay soo booqanayso weli wiilku ma oga inuu xanuunkan uu ku dhacay ma oga haweenaydiisii
ayaa meeshii timid waxay ku tiri laqad dalamtanii waad i dulmiday inankaagiina waa dulmiday dibna u arki maysid inankaagii ogow markaasaa waxa uu ku yidhi maxaa dhacay waxay ku tiri miyaad og tahay xanuunkaaga may buu yidhi sidaas weeyaan bay ku tiri xanuunkaaga aids baad qabtaa naxdintii meesha uu ku dhacay naftaa ka baxday wuu dhintay isagii iyadii meeshii bay ku xanuunsatay aad bay oyday iyadiina waxaa dhacay waa la kaxeeyey markii ay meesha ku oyday waxoogaa ku xanuunsatay ayaa dhakhtarka loo qaaday waxaa loo sheegay inay iyaduna aids leedahay sidaa iyada iyo wiilka yarba iyadii naxdin markaas way waalatay naxdintii bay waalatay qol baa lagu xidhay wiilkii yaraana waa laga qaaday waa laga fogeeyey odaygii meesha ayuu ku sakaraadayaa dhinac baa bakhtiisan odaygaygii dhimay wiilkii yaraa aids buu leeyahay meesha iyadii waa tan waalanoo aids bay qabtaa xaggaas ayadana maarta lagu hayaa haweenayda aabbaheed baa yimid iyo walaalkeed ayaa yimid si iyadii bay dhakhtarka ka soo saareen wiilkeyga bal ha aragto in yar ha aragta bay yidhaahdeen si ay nafteeda u degto muddo ayayna arag wiilkaygii bay ku soo boodday laabtay ku qabatay xoog bay ugu dhegtay naqasii ku dhejisayba qiiq yarana naftaa ka baxday meesha ayuu ku dhintay waa qisad runa oo dhacday dadkii u taagnaa ay qisadani ka dhacday ayaa qoray oo warinaya wiilkii yaraana xaggaas ayuu ku dhintay iyada oo qoslaysa marna ooyeysa ayuu odaygii doonay inuu ka qaado wiilkii yaraa waxay ku tidhi maata laqad maata wuu dhintay hoo ilmi yaraayo mayda kadibna middi bay ula baxday odaygii waa u hanjabtay aqalkay kortay waa isku soo xidhay mar waa hadda ayaa xadhi ku xidhay waa isa soo sudhay xaggaasa iyadiina naftu kaga baxday qoyska iyo reerka maxaa baabi'iyey aan isweydiinno waa zinadii uu maalinkii galay uu ku farxay uu mar walba ku soo ceshanayay ayaa way ka daba timid haddaad adigu ilowday ilaahay ma iloobin nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam idaa daharat almacaasi fii ummatii macaasidu markay ummaddayda ay ku soo daahirto ay ku soo baxdo soo muuqato ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku caam yeelaa gebigood cadaab min cindih cadaab agtiisa ka ahaaday ayuu ilaahay subxaanahu wa tacala ku soo marka ay musiibadu soo degayso waa markaad aragtid fasaadkii oo soo daahiray xumaantii oo la muujisanayo dibadda la muujisanayo ogow markaasi ilaahay wuu cadhoon ilaahay hadduu cadhoodana oy cadhada ilaahay ay soo degto kanaa wanaagsan kanaa sheekha kanaa ma jirto gebi aakhira la kala soocayaa asxaabtii baa waxay ku yidhaahdeen yaa rasuula allaahi amaa fiihim yowmaidin unaasun saalixuun maalinka miyayna dad wanaagsan ayna ku dhex sugnayn maalinku ilaahay cadaabka uu ku soo dejinayo ay macaasida ayna iska qabanayn dad wanaagsan mayna ku dhex jirin nebigu waxa uu yidhi balaa haa way ku dhex jiraan dad wanaagsan markaasi asxaabtii waxayna kayfa yusnac biulaa'ik kuwa maxaa la gaarsiin oo laga yeeli nebigu waxa uu yidhi yusiibahum maa asaaba annaas waxaa dadka ku dhacay ayaa iyakana ku dhici uma yasiiruuna ilaa makfiratin min allahi wa ridwaan kadibna raalli ahaanta ilaahay iyo jannadiis
ayay geli doonaan. ilmaha yar muxuu dembi u sameeyey? odaygaas muxuu dembi sameeyey? waa dembigii odaygaa waxaa loo qabtay inanka dembigii uu sameeyey ayaa loo qabanaya. aakhiro waa laka bixi, janno iyo wanaag iyo khayr buu ilmahaasi gaadhi, laakiin adduunka musiibada iyo dembigaa soo degay ayaa lagu ciqaabayaa. ayuha alikhwa, nebigeenu calayhi الsalaatu wasalaam waxa uu inoo sheegay, waxa uu yidhi maa daharat alfaaxishatu fii qowm, zinadu qoomku ma soo daahirto oo ma muujistaan xataa yuclinuu biha, ma muujistaan zino qoom. zinadii ayaa meela loo samayn video lagu daawado, hablihii iyo inamadii baa isla geli, xumaantii baa la muujisan, meelo lagu daawado ayaa loo samayn, dadkii zinadii bay daahirsanayaan buuhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam. markay muujistaan waxuu ilaahay ku sallidi cuduro aan jirayn lam takun fii aslaafihim, dadkii ka horeeyey aan ku dhicin. madii naga horeeyey nebi nuux qoomkiisii iyo caadi iyo hamuud iyo aydhis iyo siidaa iyo ma jirayeen? ma jirin. waa zinadii oo la daahirsaday. imika siidaa baa dhacay, jabti baa dhacday, hablihii baa la kufsaday, meel walba xumaan iyo fasaad. ogow, weligaaba iswalwaal adigu, weligaaba ardada isku qaadqaad, ilaahay waa kuu kaadinayaa. ilaahay wuxuu leeyahy addoonkayga waa intaasu ka soo ii soo noqdaa, waa intaasu ka toobad keenaa. laakiin markaad xumaanta aad ku sii socotid ilaahay wuu ku qaban. hadduu ku qabtana ilaahay kuu naxariisani maayo. qiso dhaba waan u taagnaa, waan u joogay anigu. dad badanna waxaa laga yaabaa meesha fadhiya inay garanayaan. inan baa loo tegey, ducaaddaa u tagtay, waxay ku yidhaahdeen ilaahay ka cabso, diintuu caayaa, ilaahay buu caayaa, salaadda ma tukado, diintu waxa uu yidhaahdaa diintu xaq ma aha, saasuu odhan jiray. ducaad baa u tegay, waxay yidhaahdeen war ilaahay ka cabso, ilaahay u toobadkeen. waxa uu yidhi meeshay fadhiyaan, waxa uu yidhi dhegaysta, waxaad ilaahay baad igu cabsiinaysaan iyo cadaabkiisa miyaa? ilaahiina waxaa ku sameeya. haddii uu imaqlayo waka aan caaye waxa iga qaada buu yidhi. wallaahi alcadiim, waa xaqiiqa, waan u jooga anigu. waa la argagaxay, waa laga baxay. meesha musiiba soo socotaa la yidhi, inaga saara. bili ma soo wareegin, wuu iska qoslayey, wuu iska ciyaarayey, baabuurkiisii buu ka haysta, agsidaa buu galay. meel kale rabbi kama dilin, laftaa dhabarka umaa la kala jebiyey. insaankan waa daciif, faryarada haddii la kala jebiyey maantoo len insaanku uu cabaaday. laftaa dhabarku ilaahay kala jebiyey. qac waa la qaaday, yurubtaa la geeyey, waa la soo daweeyey, laakiin baaraliise dabcan dhinac baa baktiyey, ma kici karayo. waa la keenay, waddankaa la keenay. waxaa la keenay isaga oon qacmaha qaadi karayn, lugahana aan qaadi karayn, midna aan qaadi karayn, farihiis ayaa la keenay. waan u tagnay, waan u naseexaynay, waxaa laga yaabaa inuu toobad keeno. wuu hadlayaa, laakiin ogow, mar kaluu ilaahay caaye. ilaahay baa iga sareeya, qacmihiisa iyo lugihiisaasiba way urayaan. lama feliisan karaysid, matag waad matagi, way urayaan. dawooyin baa yurubta laga soo siiyey, u mariyaa. habeenkii markuu seexdo, wax alla waxa baraanbar iyo jiir iyo jinac iyo wax alla waxa jaarka oo dhan, meelahaas oo dhan baa ku soo urura, xayawaan oo dhan. markaasaa qacmihiisan iyo lugahan ma dareemaya, isagu waa la cunaa. subaxdii markuu toosan buu arkayaa intan oo la cunay, lugihiisii oo la cunay, wuu dhawaaqayaa. saasuu u fadhiyaa. waa lafihii waxay soo saarayaan, lafihii bay soo saarayaan. subxaan allah, sidaasuu u sugnaa.
wuu fadhiyaa bes waa la fariisiiyaa waa la qaadaa dhaqaaq kale male cuntada afka loogu ridaa biyaha waa la waraabiyaa saas u fadhiyaa labadii bari uu ku fadhiyey ilaahay wuxuu ka soo saaray laba saanfoora waaweyn dhulax ayaa midii laga soo saaray calooshaa loo fariisiiyey subaxdii walba dhakhtarka u yimaada waxbaa lagu dhaadhiciyaa waa laga soo sifeeyaa intaasay ilaa leegin daloolku waa weyni uma fadhiisan karayo caloosha u jeefaa qurmuunka ka baxaya xayawaanka jidhkiisa ku soo ururaya silica uu ku nool yahay waan u tagnay isagoo sidaa ku sugan muxuu daawanayaa filimaan xun oo anshax xun buu daawanaya caloosha u jeefaa iroga buu leeyahay irog filimka ajal yacni waxa weeyaan waa xaaladtii ugu dambaysay ayay ku sugnaay silic cuntadii kuma dhaadhici karayso wuxuu sidaa u ku sugnaadaba markii dambe hooyadii buu beryi jiray dadkii qaraabadiisa way ka tegeen gabadhi guriga uma shaqayso gabadhii guriga ka shaqaynaysa way ka tagtay waan ma tagayaa bay tiri gurigoo dhan baa uraya hooyadii baa ku soo hadhay xataa walaalkii uu ka tegey xataa walaalkii uu ka tegey wuxuu beryi jiray qofka u yimaada walaal iga nax maxaan kuu qabtaa idaldal idil nafta iga qaat inaan dhinto ayaa ii dhaanta noloshana ku noolahay xaaladdaasoo ku noola ayuha alikhwa sidii isaga oo ku nool buu dhintay maxaad u malayn ilaahay cadhadiisu way daranta waxaa dhacay waa qisa xaqiiqiya waxay ka dhacday sacuudiga ayay ka dhacday meesha faysaliya la yidhaahdo riyaad ku taala ayay ka dhacday qisadaasi waa haweeney meesha faysaliya la yidhaahdo waa riyaad waa meel aad u qurux badan qalab qaaliyaa lagu iibiyaa inamada iyo hablaha ayaa isla soo doonta oo meeshaa yimaada gabadh baa maradeeda khafiif ka dhigatay intaa yara laabta ayay qaawisay waa sacuudi carabiya inan sheekha meesha soo galay gabadhii baa waxa uu ku yidhi naa ilaahay ka cabs low jaa'aka malaku lmowt maada tafcaliin hadduu malakulmowt kuu yimaado adiga oo sidaa laabtaada u qaawiyey oo raggu sidaa kuu daawanayaan maxaad yeeli buu ku yidhi intay qosashay ayaa waxay tidhi boortaabalka rabbiga u garaac hoo telefoonkaygano waxaad ku tidhaahdaa malakulmowtka ha keeno boortaabalka rabbiga u garaac telefoonka rabbiga u garaac waxaad tidhahdaa malakulmowt keen yarkii wuu naxay isagoo argagaxsan buu ka baxay meesha waxa uu yidhi albaabka maan gaadhin wallaahi alcadiim ilaa waxaan maqlayaaba qaylo waa la wala qayliyaa walaalaala waan soo noqday buu yidhi maxaa dhacay waaba gabadhii oo wejiga u dhacday oo dhimatay way dhimatay xaggii isla markiiba meeshii bay naftu kaga baxday waxa uu yidhi markaan arkay in iyadii ay tahay ayaan dadkii u sheegay oon idhi wallaahi alcadiim iminkaan u naseexaynayay gabadhan oo hadalkaas ay tiri ilaahay waa kaa qabtay waxa uu yidhi dadkii way ooyeen meeshiina way ka baxeen iyagoo ooyaya qisadani waxay dhacday bishii shacbaan 1421 hijriyada nebiga calayhi salaatu wasalaam ree faysaliya dadka ka shaqeeya oo dhan wala garanayaan qisadaa iyo se u dhacday ilaahay waa naxariis badan yahay addoonkiisa waa u kaadiyaa rabbi subxaanahu wa tacaala laakiin maalinka uu qabto rabbi uma naxo qisad kale caawa habeenkii qisaska un qisadani waxay ka dhacday sheegi maayo meeshay ka dhacday laakiin wiil yar oo caadil la yidhaahdo
ayaa waxa uu ku noolaa nolol aad u qadhaadh buu ku noolaa, xumaan badan buu ku noolaa, khamradu cabbi jiray, hablaha ayuu ka tuman jiray, fasaad badan buu ku noolaa, gabdhaha ayuu meelaha ka ugaadhsan jiray. waxa uu maalin uu helay gabadh la yidhaahdo rabaab la yidhaahdo oo ardayada oo jaamacadda dhigata ayuu helay. telefoonkeyguu helay, wuu u telefooniyey, wuu la hadlay, si wanaagsan bay u sheekaysteen. hablaha intuu saasoo kale uu yeelo uu la hadlo ayuu marka dambe kuula ballamayey oo xumaan buu ku samaynayey. gabadhan iyadu way khashiftay oo waxay tidhi may arki maysid, telefoonka amaan ku sheekaysanno weligeen. lacag badan bay kaga dhammaysay telefoonka, maalin walba u garaaca way u sheekaysaan bes, laakiin inuu la ballamo way iska diiday. markii dambe waxaa ku inaan ku guursadaan rabaa, xumaan ma rabo, waxaasuu ku dul akhriyey. waxa uu ku yidhi guriga aan kuu diyaariyey iyo xamaanta aan iibiyey kaale soo arag haddaad beenta moodays. waxa uu wadaba way soo jilicday gabadhii. guriga ayaan ku tusi, wuu u dhaartay wuxuu ku yidhi wallaahi alcadiim inaanan rabin xumaan, hadalkaagu manaag caqli badan baad u eg tahay, waxaan rabaa bes inaan ku guursado, gurigana soo arag. maalin subaxa gabadha kulliyadda dhigata, jaamacadda dhigata, aabbaheed baa subaxdii sii qaada, duhurkiina isagaa soo doona, saasay ku noosha. aabbaheed baa sii qaada mar walba, aabbaheed waa oday aad u daran oo adag yahay. rabaab subaxdii markuu odaygii meeshii u dhigay ayay kula ballantay inanka, waxay tihi meesha igu kaalay kulliyadda horteeda. meeshii buu ugu yimid, uu kaxeeyey, meeshii buu la tegey. gurigii buu tutusay, ay kareseen isaga iyo asxaabtiisa, qaar bay asxaabi yihiin. gurigii buu tusay, waa kanuu yidhi gurigu adigaa iskale, adaan kuu guursanaya, xumaan ma rabo, waa kan nadiifta ah, waa kan sidana, waxaan oo dhan haddaad dirahda xamaantan iga bedel oon kaa bedeli, xagguu ka waday. gabadhii wuxuu wadaba wuu ka tuntay. bes waxa uu ku yidhi sharaab baan inoo soo qabana waan soo noqona, sii yara joog. aqalku dusha kaga sii qufulay, baabuurkiisuu kaxaystay, suxun buu u waday. hayga habsaan bay tiri, aabbahay baa soo doonayay oo wakhtiguu imanayay ayaa soo dhowey. xoog buu u waday, mukhaalafuu sameeyey, waa la qabtay. taraafiigii baa qabtay, way kaxeeyeen. baabuurkaa lagu riday, waa la xidhay. muftaax isaga haysta, gabadhina meeshay ku jirtaa. mid saaxiibkiiya oo muftaax haysta isaguna hablaha soo ugaarsada oo meesha keena ayuu u telefooniyey. wuxuu ku yidhi war hee, gabadh baan ka tunto caynkaasoo gurigii baan ku xidhay oo anigana waa la xidhay, iyadana aabbaheed baa u imanayo, kulliyaddii bay tegaysaay, bal dee gabadha hore orod tagoo ka fur. waa isa soo daayay kiina, albaabkuu yaro gargaraacay. gabadhiina xaggay ku dhex ooyeysa, alla aabbahay baa imanay, alla maxaa heeliyey, alla wakhtigii baa gaadhee, alla saasay hayse. uu ka furay. inanka xaamid baa la yidhaahdaa. markuu ka furay muxuu arkayba? waa walaashii. gabadhani waa walaashii. xaggii buu naxdin, iyadiina naxdin. xaggii baa waxa uu yidhi ma xumaan baad keentay, karaamadayadii baad maaragtay ku ciyaartay, sharaftaydii baad ku ciyaartay, timahaygii buu jijiiday. xaggiiba ma ogti middi ayuu ku geliyey, sidaas ayuu ku dilay walaashi. isaga soomaalida maxay tidhaahdaa? god haddaad qodid dheerayn, haddaad dheeraysid inaad ku dhici doontidna mooyaane, yacni is-ilaaliga. haddaad walaalkaa god aad u qodid, aad ha u dheerayn. waxaa laga yaabaa inaad adu aad ku dhacdide, aad ha u dheerayn. marka haddaad qodaysid, waxa uu rabay hablaha kale iyo xumaanta kale iyo fasaad waka, walaashii baa lagu soo riday godkii. akhiiran iyadii ayuu dilay. ma sii wadnaa qiso kale.
qisooyinkan waxaan u sheegaynaa waxa weeyaan in lagu waantoobo wax lagu qaato. qisadani waxay ka dhacday iyaduna waa tan oo kale, waa u dhowdahay, laakiin ninkan waxaa la yidhaahdaa magaciisa Saalix baa la yidhaahdaa. waa nin ganacsata oo shaqaysta oo taajira, isaga oo u socday meesha iyo Suuriya ayuu socday, Xalab. dariiqa isaga oo ku jira ayaa baraf badan ayaa soo da'ay. dariiqa uu sii marayay ayaa la mari karayn baraf awgeed. waxa uu is yidhi guryahan dariiqa ka sii maraysid guri ku leexo oo iska naso ku naso. caadada waddadaana waxa weeyaan waddada dadka degan, dadku ay ku soo leexdaan, way la cunaan, way la cabaan, way martigeliyaan, lacag yar bay siiyaan, saasay maaragtay subaxdana ku baxaan. meeshana hotel ma jiro, guri buu ku soo leexday. marka gurigii ayuu ku garaacay, way ka fureen. waxa uu ku yidhi meesha dee waddadii baraf badan baa ku da'ay, habeenkuna waa madow yahay, inaan ku nasto meesha, lacag yar in siiyo ayaan rabaa. waayahay bay yidhahdeen, soo dhowow. waa 2 maqsin wuxuu ka kooban yahay gurigu. maqsin iyakaa gala, odayga iyo haweenadiisa. maqsinka kalena wiilkooga ayaa gala. way gurigii bay isku yimaadeen, martidii bay raashinkii u soo dhigeen, waa la wala cunteeyey. xaggii baa lagu wala cunteeyey. wiilka la seexay yidhaahdeen, isagii dhinac baa loo seexiyey wiilkii, ninkiina dhinac baa furaash loo dhigay. inankiibaa habeenkii soo kacay, waxa uu la sheekaystay ninkii martida ahaa, habkii u ganacsato habkii u shaqaysto, waxaasoo dhan. siduu meeshii inankii ula sheekaysanayey ayuu meeshii ku gamay. ninkii martida ahaa furaashkiisiibuu ku gamay, meeshii buu seexiyey, furaashkiibuu maradiibuu huwiyey, isna furaashkii inanka ayuu iska seexday. odaygii iyo islaantiina meel bay wada fadhiyaan. islaantiibaa waxay tiri, waryaahe ilaa xilli ma uman faqiirnimi dad faqiirina ahaanayna oo sidan masaakiin u ahaanaynaa. maanta waxaa inoo yimid nin lacag leh ayaa inoo yimid. waa nin lacag leh, qofna inama arkayo. waa inaan maanta ninkan aan dubannaba, waa inaan dilno oon xoolihiisaa qaadanno. lacag badan buu haystaa, waa adiga arkaya, waa inaan dilno. waxay waddaba way ku dhaqaajisay. meeshuu tiriig male, faynuus baa la shitaa. waayahay oo adigii isaga dhinacaasaad seexisay, inankaa iga dilin bay tiri. waa adigii martidana dhinaca seexiyey. bahal faasuu soo qaatay, idna way daba socotaa. waa sak dhexe. dee wuu bilaabay intuu iskor taagay madaxa, mana arkayo ogow, madaxiisii markuu yaro ogaaday yuu ku dhuftay. waa qisa runa. xaggiibuu ku dilay. qayladii iyo wixiibuu ninkii martida ahaa sara kacay. tiriiggii iyo wixii baa la shiday. kii martidii oo meesha fadhiyo, kay dileenba waayo, waa ininkoodii. waa musiibo. maxay samayn? labadiiba meeshii bay ku suuxeen. labadiiba isagaa bilaabay inuu biyo ku rusho. uu yidha maxaa dhacay? maxaa inankiini u disheen? walaa yaxiiqu makru sayi ilaa biahli. xumaantu adigu may kugu noqon. xumaantu adigu may kugu noqon. salaaddii baa gaadhay. qisadana ugu dambaysa waxaa soo socda maalinkii afriil ee ciyaalku beenta sheegayeen ayaa soo socda. maalinka ayaa beenta xalaaleeyey. been xalaali ma jirto been xalaali. beentu mar walba waa xaaraan.
islaamka maalinba male beentu mararka qaarkood qof bay dilaysa islaamba inan qurata ayay lahayd inankeygii ayay jaamacadda u dirtay mar walba way ka fikirtaa inankaygii xilmuu soo noqon waa inankaasoo qurata waxay leedahay ogow mar walba waxay ku fikirtaa xilmu inankaygii ii soo noqon ayay ku fikirtaa waa u xistay inankayga axmed baa la yidhaahdaa laakiin waqtigii baa soo dhow soo noqonayey way faraxsan tahay iyada oo sidaa ugu xiistay oo faraxsan oo le waqtigii u imanayey telefoon baa markuu ciyaba way orodaayo ma axmed baa bay tidhaahdaa sak dhexoo telefoon u yimid telefoonkii bay qabatay hallo ma axmed baa xilli maad imanaysaa waa wiil yaroo la kaftamaya waxa uu ku yidhi waxay ku tiri wa'ayo waxa uu ku yidhi inankaagii axmed baabuur baa jiedhay oo wadhintay oo ka yar islaantu ka nixinaya islaantii meeshay ku dhacday way dawaqday dhakhtarkaa loo qaaday jajabkaa la geeyey meeshii baa loo qaaday dhakhtarka dhakhtarkiiba muddo taalay xaaladdeedu aad buu u darnaa inankii baa yimid axmed telefoonkii hooyadii ka qaban weyday dhowr cisho markii uu yimid markaasaa si uu hooyadii uga farxiyo oo si kadisa ugu soo baxo waa loo sheego waxaa la yidhi hooyadaa dhakhtarkay ku jirtaa baabuurkii buu qaatay xoog buu eriyey si uu hooyadii u ogaado aad buu ugu fikirayay hooyadii baabuurkii uu watay ayaa la rugmaday isagiina wuu dhintay dhakhtarka ayaa isagiina loo qaaday islaantii baa soo miyirsatay waxaa loo sheegay wiilkayga inuu yimid oo intuu iyada u soo ordayey oo baabuurkii la rogmaday oo dhinto oo meydka inuu yaalo qaybta meydka naxdinba iyadiina dhimatay caawala dhimasho haya dacwadeedu inta caawa inoogu ekaado been ma jirto bannaan been bannaani ma jirto maalin la baneeyey ma jirto beentu waa xaaraan dembiguna wuu kaa daba iman adiga hadduu ku qabsan waayo adiga iyo awlaadaada iyo tafiirtaada dambe ku qabsan وجزاكم الله خيرا وصلى الله على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هموم المسلمين غدت كثيرة قضاياهم بلا جدل مثيرة فتلك جراحهم أدمت فؤادي ومن آلامهم نفسي حسيرا. هموم المسلمين غدت كثيرة قضاياهم بلا جدل مثيرة فتلك جراحهم أدمت فؤادي ومن آلامهم نفسي حسيرا. هموم المسلمين هموم المسلمين هموم المسلمين